warsoo dhawaada wadayaal war farxad leh ayaan idiin wadaa ciidanka daraawiishta maamulka Puntland ayaa saaka mar kale la wareegay deegaano muhiim ahaa oo muuqaalkii ka horeeyana aan ku sheegay in ciidanku ay ku sii wajahan yihiin oo saaka ay u jarmaadeen sidii ay gacanta ugu dhig lahaayeen deegaanada iyaga waxay saaka ciidanku la wareegeen deegaanada Daramadow ilaa iyo Toga afka curaar bay ciidanku la wareegeen sida idin muuqaalada si fiican u daawo saldhigyada meeshan aad moodo inay Ingiriis iyo Mareykan ay deganaayeen qaabka uu u qaadeysay saldhigyada inta la eg ayayna ciidanku maanta ay gacanta ku dhigeen iyadoo halkaasi ku dilay kooxo argagixisada ka tirsanaa oo tiro badan hadaba tirada ciidanku ay sheegeen halkaasi lagu dilay deegaanadan ay la wareegeen muhiimada ay leedahay iyo sidoo kale deegaano muhiim ah oo maalmihii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalidu ay aad iyo aad u hadalhaysay kooxdana lagu tuunsan yahay inay yihiin saldhigyadii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen oo ciidanku hadda ay kaabiga u saaran yihiin ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa haddii aad leeymo soo dhawaada muuqaalka like saaro fugeeya meel dheer ka tuura aynu ku bilownay ciidamada daraawiishta maamulka Puntland ayaa saaka la wareegay deegaanka Daramadow ilaa iyo Toga af curaar oo ahaa deegaano muhiim ah kooxda argagixisada Daacishna ay ku lahaayeen saldhigyo waaweyn oo waliba la rumaysay inay ahaayeen talisadii ugu waaweynaa ee Buraca Almiskaad ee gobolka Bari ay ku lahaayeen deegaanadan waxa maalmihii la soo dhaafayba ku socday duqeymo iyo sidoo kale diyaaradaha saaxiibada Puntland oo ayagana taageed garisanayay goobaha markaas ay kaga sugan yihiin kooxda argagixiso waa jabtay Daacish jab xoogan ayaa ku gaaray Buraca Almiskaad ee gobolka Bari wixii hadda ka dambeeyana waxa la rumaysan yahay in kooxdu ay noqon doonto mid markaasi ku dhufo oo ka dhaqaaq mooyeen meel ay kaga sugan yihiin buuraleyda gobolka Bari aasa jirin deegaanadii ugu muhiimsan gacanta ayaa lagaga soo dhigay meeshan hadda maanta la qabtay goobahan hadda la qabtayna maanta waxay ka dhigaalantahay saldhigyadii ugu waaweynaa ee kooxda argagixisada ay ku lahaayeen buuraleyda Almiskaad ee gobolka Bari ciidanku ilaa iyo shalay duqeyn ayay ku wadeen deegaankan Daramadow iyadoo dhanka kalena diyaaradaha wax duqeeyay ay garab socdeen duqeynta ciidanka ee markaasi gantaallada waaweyn ay ku garaacayaan goobahan maanta gacanta lagu dhigay argagixisada ayaa jab xoogan halkan lagu gaarsiiyay xubnihii ugu badnaa ayaana halkaasi meydadkooda daadsan yihiin sida ay nala wadaageen ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee Daacish howlgalka ciribtirka kooxda khawaarijta Daacish ee ciidanka Puntland ayaa iyagana war ka soo saaray waxa ayna sheegeen in meeshaasi lagu xasuuqay kooxda argagixisada ciidamaduna ay ku sii wajahan yihiin goobo kale oo maalmihii la soo dhaafayna ay duqeyntu ku socotay sida la rumaysan yahay deegaanadan horay ayay saraakiisha ciidamada Puntland ay u sheegeen oo waxay sheegeen haddii ay goobahani gacanta ku dhigaan inaysan jirin goob kale oo markaasi hakad gelin doonta ama ay ku hakan doonaan ilaa iyo markaasi waxa uu dhinaanayo kaliya soo afjarinta kooxdaasi argagixisada ciidamada waxay hadda ay ku wajahan yihiin sida loo xaqiijiyay deegaanka Shabaab oo ah deegaanka markaasi labaad ee soo raaca deegaanadan hadda ay gacanta ku dhigeen Shabaab dhowr habeen oo la soo dhaafayba duqeyn isdaba jooga ayay ka fuliyeen diyaaradaha Mareykanka iyo sidoo kale diyaaradaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah howlgalkan ciribtirka kooxda khawaarijta ee Daacish labada wadan ee hore aan ku soo sheegnay Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa Puntland ka caawinaya dhanka duqeynta iyo sidoo kale goobaha markaasi loo mareynayo inay isku urursanayaan kooxaha iyadoo diyaaraduhu ay maalmihii la soo dhaafayba si isdaba jooga ay duqeyn xoogan halkaasi uga filinayeen Shabaab waa deegaan dhowr jeerba kooxda argagixisada jab xoogan loogu geystay oo lagu duqeeyay tirooyin badan ayaa kaga dhintay habeenadii la soo dhaafay laba habeen gudahood waxay diyaaradaha ku duqeeyeen oo ay duqeyn ay ku dileen 44 kamid ah argagixisada iyo sidoo kale 29 iyagana kamid ah argagixisada tiradaasba waa laba habeen oo kaliya ayaa looga dilay kooxda argagixisada ee Shabaab ee argagixisada Daacish waxa la rumaysan yahay waqti xaadirkan in godad oo kaliya ay iskugu soo hareen ayna ku adkaatay kooxdu inay iskugu soo baxaan banaanka ama ay yeeshaan shirar iyo sidoo kale isku soo bax ay ku diyaar garoobayaan oo markaasi ay ku tashan karaan waxa adkaatay oo kale in gaadiidkooda ay haystaan ay dhaawacyada iyo sidoo kale ay ku qaataan agabyada muhiimka ah oo waxa taageed garaysanayo kor taagan diyaaradaha iyo sidoo kale gantaalada ciidamadu ay la saaran yihiin buuraha fiiqooda ugu sareeya jab xoogan ayaa soo gaaray kooxda
oo waxa weeye daacish oo hadda waxaa dhammaaday waqtigoodii ayaa soo dhammaaday ciidamada sida aad u jeedaan sii qulqulaya goobihii ay qabteen ee daramadow iyo sidoo kaleeto afka curaarba kuma aysan istaagin oo way ka sii dhaqaaqeen oo waxay u sii jarmaadayaan oo hadda ay ku sii wajahanyiin sida horey bay kula wadaagay deegaanka shabaab oo ah saldhig iyadana aad muhiim ugu ah kooxda argagixisada waxaa halkaasi maalmihii lasoo dhaafay sida idigu sheegayba duqaymo xoogan lagu xasuuqay kooxda argagixisada oo xataa ay ku adkaatay inay meydadkooda ay xabaashaan ciidanku iyagoo akhbaar ka helaya dadka deegaanka iyo sidoo kaleeto sirdoonka ay ku dhex leeyihiin goobahan ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada ayaa u caddaatay inay kooxdu ku jabtay deegaankaasi islamarkaana ay hadda ciidanku ay kusii wajahayiin waa suurtagal in galabtaba deegaanka shabaab ay gacanta ku dhigaan ciidanka daraawiishta maamulka puntland howlgalkan ballaadhan ee ciidanku ay wadaan ee lagaga xoreynayo gobolada amaadhahne buuraha gobolka bari deegaanada puntland dowladda federaalku wax doora oo ay ku leedahay ilaa iyo hadda ama taageera oo laga haya ma jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalayto baarlamaanka hortagayna wuxuu sheegay in puntland ay ku taageersan yihiin dagaalkaasi guddina ay iska soo saari doonaan waxaa sidoo kaleeto dowladda federaalku maanta ay soo saartay warqad ay ku sheegtay inay howlgal duqeyn diyaaradeeda oo ay iska kaashadeen maraykanka iyo soomaaliya laga fuliyey buuraha calmiskaad ee gobolka bari warqada ayaa iska soo dabadhacaysa oo dowladda federaalku waxay sheeganaysaa guulaha puntland ay ka gaadhay dagaaladaasi ay kula jirto kooxaha argagixisada caalamiga ee daacish guul weyn ayaa dhacday run ahaantii arrintan guul way ka weyntahay dowladda federaalkeedna warqadu bay iska soo tuuraysaa ay leedahay waxa weeye howlgalaan iska kaashan anaga iyo maraykanka ayaa ku jajabinay saldhigyo oo ku burburinay guul baan gaadhnay sidan aan yeelnay howlgalkaasaan qayb ka qaadan war ilaahayo war ileen ceeb looma dhinto war ma waxaad aragtay dad waaweyn oon xishoonaynin rag waaweyn oo aan naxaynin rag waaweyn oo aan shiixaynin rag waaweyn oo aan ceebna ka cararaynin miyaad aragtay ma rag waaweyn oo waxaad aragtay bilaa qursho ah dagaalka puntland ay ku jirto ee subax walba ciidanka geesiyaasha puntland ay tallaabo sii qaadayaan ee guulahaad aragtay ay ka gaadhayaan iyadoo buuro godod iyo sidoo kaleeto ay ku dagaalamayaan togog iyo dhul jeexjeexa oo qofka kuu dhow aadan arkaynin haddana guulaha intaa dhan ay gaadhayaan ayay dowladii federaalka ahayd kolbaba intay warqad iska soo dirtay waxay leedahay waxa weeye guul baan gaadhnay warqaday saaka ku baahiyeen bejka telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa waxa ay ku sheegeen inay howlgala iska kaashadeen ciidanka dalka maraykanka ee africom taliska africom iyo soomaaliya inay guul weyn ay ka gaadheen oo lagu burburiyey oo lagu jajabiyey saldhigyo ay kooxda lahaayeen iyo godada ay ku dhumaalaysanayeen firxadka kooxaha argagixisada ee daacish ma waxaad aragtay adigu dad aan xishoonaynin si kastaba howlgalku waa socdaa si habsamida ayuu socdaa anigana horey baan idinku ballan qaaday inay daqiiqad walba wixii ka soo kordho haddii wakhtigu ii saamaxo inaan bulshada soomaaliyeed aan la soo wadaago guulaha geesiyaasha ciidamada puntland ay gaadhayaan wixii ka soo kordho waynu eegi doonaa